gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Xuseen Shire Buqaari oo wehliyaan taliyaasha qaybta booliiska saldhigga degmada Gaalkacyo Hobyo ciidanka xasilinta gobolka Mudug ayaa deegaanka Laama Ariboob uga qayb galay kulan looga hadlayay xoojinta amniga xasiloonida iyo wadajirka bulshada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland waxaana kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee dhanka maamulka Puntland Maxamed Xasan Waloore odayaasha dhaqanka labada dhinac mas'uuliyiin ka socday maamulka degmada Galdogob iyo saraakiisha laamaha amniga Puntland kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka bulshada reer guuraaga ah iyo xal u helidda deegaamaynta dhulka xoolo daaqeenka ah taas oo marar badan ay ku soo noqnoqdeen inta u dhaxaysa deegaanada horay looga heshiiyay inay noqdaan xoolo daaqeen kuwaas oo mararka qaar dadka reer miyiga ah ay deegaamayn ka sameeyaan kulanka oo saacado badan socday isla markaana lagu falanqeeyay waxyaabaha keena soo noqnoqoshada deegaamaynta abuura xiisadaha hirgelinta heshiisyadii horay deegaanka nabadiisa looga gaaray ayaa laga soo saaray ugu dambeyntii qodobo qeexaya ilaalinta amniga iyo wada noolaanshaha bulshada walaalaha ah qodobada la soo saaray waxaa ka mid ahaa 1 qabashada guddi ka kooban 14 xubnood oo dhaqan ah isla markaana xogogaal oo ah heshiisyadii deegaanada oo ay ugu dambeeyeen heshiisyadii degmooyinka Bandiiraley iyo Galdogob 2 in la keeno heshiisyadii la kala qortay 3 in toddobaadkan gudihiisa la isugu yimaado shir lagu dhameynayo hirgelinta heshiisyadii hore 4 ilaalinta sohdimaha iyo deegaamaynta cusub oo loo xil saaray ciidamada xasilinta gobolka Mudug ee militariga Soomaaliya iyo ciidamada booliiska isku dhafka ah oo ay xoojinayaan ciidamada booliiska federaalka iyo daraawiishta labada dawlad goboleed qodobadan ayaa gobol xaar u ah xalinta madmadow ka dhashay deegaamayn la sameeyay oo labada dhinac ee bulshada deegaanku ay sameeyeen inta badan dadka reer miyiga ah ayaa sameeya qodista baraago iyo bacaha biyaha lagu kaydiyo kuwaas oo ay ka abuurmaan xiisado haddaan laga hortagin isku bedela gacan ka hadal Saadaq Siciid Nuur Raadiyaha Telefishinka Galmudug Gaalkacyo